ujeedada casharka waxa kale waa iska cinwaan fasalka maadada magaceeda cinwaanka taariikhda xisada waa iska formatka waa qaabka laakiin waxa ugu horeeya waxa way ujeedada casharka ujeedooyinka aan wax yar ku nasanno ujeedada casharka macallimiinta waxaan ka codsanayaa in qof walba inuu isiiyo hal ujeedo oo kamid ah ujeedooyinka casharkiisa hal ujeedo oo kamid ah ujeedooyinka casharkiisa bal qora qof walba ha qoro hal ujeedo qor casharkaaga maadadaada kamid ah ujeedooyinka yaa af Soomaali dhiga Soomaali hay sheeg ujeedo hal ujeedo عنواية والله عنا يا عنواية ujeedada casharka maanta waa عنواية والله عنا kow yaa kale ujeedo kale ujeedada casharka waxa weeyaan maanta waxa laga wadaa عنواية waa loo cunaa haye arday kasta waa inuu bartaa sida loo qeexo waa hebel iyo hebel arday kasta waa inuu qeexaa shaygaas iyo shaygaas waa inuu qeexaa qeexid haye haye arday kasta wuxuu go'aamin karaa cabirada garaaf la siiyay arday kasta wuxuu inuu cabiro garaaf la siiyay haye garaaf sawir la siiyo inuu cabiro haye sidoo kale xisaab haye maanta waxaan baranaynaa tusaale ahaan sida loo xaliyo simultaneous equations marka ujeedkeena koowaad wuxuu yahay inaan maanta barano sida simultaneous equation loogu xaliyo elimination casharka maanta waxa ujeedadiisa sida loo xaliyo isla egada wada jira iyadoo la isticmaalayo elimination method elimination maxaa la dhihi jiray habka isku darka may magac kale lahaa isku dar kala goyn miya isaga miya isku bedelka isgarab dhiga garaafka isgoyn kala goyn la soo maatas haye maanta waxaan rabaa inaan dhigo rotation of the earth ama wareegga dhulka iyo saamaynta waqti oo ku yeelanayo casharkaaga maanta waxa ardayda inay bartaan maxay rabaa laga rabaa ya dhulka haye iyo saamaynta waqtiga ku yeelanayo wareegga dhulka iyo xiriir ka dhaxeeya waqtiga haye عشرة كمان بحنا نتقيبها لو قيمة كمستري برنجيز كأرض وإنه فهمي كلا قيمها وكلا بحن برنجيز arday kasta waa inuu fahmi karo qaybaha uu qaybsamo chemistry-ga arday kasta waa inuu kala qaybin karo qaybaha chemistry-ga waa inuu fahmi karo iyo qaybin karo haye macallin maxaan ii rabaa maanta habdhiska wareegga haye marka arday kasta waa inuu yaqaano qaybaha uu ka kooban yahay habdhiska wareegga waa inuu yaqaan qaybaha uu ka kooban yahay habdhiska iyo noocyada dhiig haye اللغة العربية اللي أنت طبعاً هي تربيتها. ayaga rabnaa مثلاً 10 كيلومتر أو بعد نهاية الدرس يتوقع من الطلبة أن لما يصير كله 10 كيلومتر ونعت. هي بعد انتهاء الدرس يتوقع من الطالب يتوقع من الطالب أن يكون أو أن يعرف أو أن يفهم الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. أن يفهم بين النعت الحقيقي والنعت السببي. السببي نعم. أن يفهم هي casharkayga maanta wuxuu ku saabsan yahay dibiyada iyo libaax waa sheeko marka waxaan rabaa sheekadaas markii aan u sharxa ardayda oo casharka u dhamaado kadib inay garan karaan ujeedada sheekada ka dambeysa sheekada u sameeyana waa inay ciwaan u sameeyaan una sameeyaan ujeedo مثلا هي ولغة إنجليش عشان كده ما تقول كسر هي وقت حاضر كأسعار after the completion of the lesson the student should be able to وإنه فهمه وقت حاضر كأسعار ما فهمه وقت حاضر كأسعار يعني what is present continuous إنه فهمه هي عشان كان ما تو حسابين إنجليش عبرنا عن جرامر كمان نحوها إنجليش ولا marka casharka markuu dhamaado kadib ardaygu waa inuu fahmaa sida both ereyga saxda loo dhigo booska saxda both min la dhigo meesheeda saxda ah haye waa physics haye casharkeena maanta waxa waa inuu qorno ama diiradda ku saarna oo physics oo leeyahay tahay mirrors muraayadaha iyo noocyada u kala baxa muraayadaha maxaa hartaa marka ujeedada maxaa ujeedada waxa weeyaan inuu kala baxo ardayga
انت نوع وكلا بحر مرايدها classify between different mirrors ما سمعت أنا هذا معلمين حسابك ما شاء الله حسابك وريك مالك لا طبعا واحد دكتاي هل حساب له 100 أيضا بدتي سلام عليكم عشان ما تحاول سجين تجيبه ججب كاسو جينسا واللي جاب دل معنا سودارنا سجين جاب كوزاش سكودي ججب كهوسية اسكو بدله جبنا سلمان سودار جديد كبار تاي إن عشان ما كبر ما هذا أرضي ده سودار كذا ججب كوزاش سكودي سصحة هيا مركان صار نقولنا horta meesha ugu muhiimsan waxa waaye falka la isticmaalayo ujeedo marka la qoray ereyga la isticmaalayo hadaa dhahdo waa inuu fahmaa waa inuu bartaa waa kelmada caamo waa inuu fahmaa waxa laga rabaa si uu u fahmay waxa ku ogaanaysaa waa inuu fahmaa in uu qaybsan yahay chemistry organic chemistry iyo inorganic chemistry waa inuu fahmaa hadhihine erey isticmaal fal la taaban karo verb action verb isticmaal waxa dhahdaa waa in uu kala saari karaa oo kale waa inuu fahmaa hadhih waa inuu tilmaami karaa waa inuu sharxi karaa waa inuu ciwaan u samayn karaa waa inuu xallin karaa intiinii hore waxaan u baahanahay ujeedooyinkeena inay wataan xirfad ardaygu fahamsan yahay xirfad ujeedadu waa inay xoogga saartaa ardayga aysan macalinka saarin waa inuu fahmi karaa hawl macalin waaye hawl arday maaha adaa laga rabaa inaad fahamtiiso laakiin inuu fahmay maxaa ku ogaan kartaa su-aasha aad weydiinaysa ku xiranta inuu fahmay inuu waato waa inaan sheegi karnaa heerka ilaa intaan ka rabaa si saxan inuu u qoro si dhawaaqa inuu qoro tirooyinkaas asagoo waxba ka tegin digriiga heerka ujeedooyinka waxay isugu imaanayaan saddexdan qaybood qayb waa waxa uu ardaygu aqoonayo qayb waa waxa uu ardaygu samaynayo qaybna waa waxa uu dareemayo shucuurkiisa waa inta shay qofku wax ku barto marka laga hadlayo qofka waxbarashadiisa qaybta koowaad waxyaalaha aqoonta oo maskaxda mental activity-ga ah qayb waa qaybta ah xirfad hadda qof kasta oo galaaska fadhiya magaciisa waa yaqaana qof kasta idinka mid ah magaciisa waa yaqaana qof aan magaciisa qori karin ma jiraa intiinan haddii laga helo macallimiin galaaska fadhida oo aan magacooda qori karin dhibta ma iyadana arrin la yaab leh noqotay laakiin magacaaga qof kaa badiya ma jiraa maya way yartahay galaaska qof idinka mid ah oo magaciisa ku qori kara bidix gacantaag bidixda ha ma garan weysa magaceeni lama midigle ma raba guray waxaan isku waafaqsanahay inteena badan in aysan magacooda qori karin wax kale laga dhaafaya sheegida kale sax ma hadda waxaan isku waafaqsanahay in galaaska intiisa badan aan magacooda qori karin inay qori karaan isku waafaqsana laakiin inay qori karaan isku waafaqsana faraqa maxaa waay gacantaan ma qori karto laakiin gacantaan waa qori kartaa tan waxay leedahay xirfad tan xirfad male magacaaga lagama badiyo laakiin gacantaan ma taqaan ma jira waxyaalo badan oo ilmaheenu ay yaqaanaan oo aysan xirfadeeda lahayn oo ay ka baxayaan marka waxa aan barayno xirfadaan u baahana baroniga loo ciyaarayo xirfaduu rabaa aqoon buu rabaa akhlaaq buu rabaa iyo dareen intaba waa rabaa waa cayaari ah magaceed cayaar dhab maaha iyadu waa cayaar cayaarta ilmaha baraya qofka intiina cayaara idin marnay inuu cayaarta ma aqaane macalinkaasaan ku bilaabayaa cayaarta markaan bacdana mar kale ku bilaabaya waxaan baraynaa cayaarta waxaan leenahay haye xeerarka cayaarta waxaa ka mid a gacanta laguma taabto kubadda cagta waa lagaa dhigayaa xariiq hebel haddaad marto waxaasaa dhacay number 5 halkaasuu ka cayaaraa number 5 number 9 11 waa kala leeyihiin xeerarka dhan baranay inteenan marka aan garoonkan tagnay intaas wax ma lagu cayaaraa inta hadda aan baray wax ma lagu cayaaraa
maya maxay u baahan tahay xirfad waa soo baranay xirfadii intaasoo maalmood galbood wax ka dhib badan waxaa lidin geeyey garoonkii waa xirfadaysa waa cayaarteen laakiin macallin ka mida macallimiintiina ama qof ka mida qofka cayaarto iyo markaas lagu jiraaye mid waa lagu hawqaaday jaf ilkuu ka daadiyey mid kale ka soo ordaayay marada ka jeed mid kale halkaa ka qaniin sidii kii qaniini jiray aqoon baratay xirfad baratay dhaqan mee sama u baahnin cayaaraha waxay u baahan tahay xirfad aqoon iyo dhaqan iska daa waxbarasho kale ardada tiraahdo ardada kale dhaqankiinaan fiirinayaaye ma tuuga idinku jira wax tuuga ah wax tuuga ma idinku jira ardada maya subxaan allah manaa waxadna may imtixaana idin qaybiyo markaan idin qaybiyo kadib aan banaanka aaday ma fiirsanaysaan taas mayadaan la daynayaa tuugnimo maaha miya in la qishiso tuugnimo maaha tuuga ma ahin islama ardayga qishka waxaas lagala hadlay waxaa la rabaa dhaqankiisa inuu isbedelo ardayga inuu aan barno mas-uuliyad markaan wax dhigayno galaaskaanu soo galay wax ku jira male nalalkaana iska daaran waa inuu isdiraa isaga damiya dhagaxa meel yaalla waa inuu isaga isdiraa ka qaadaa mas-uuliyadaan baraynaa marka ilmaheenna waxaan barayno keliya maaha waxbarasho laga baxaye waxay u baahan tahay xirfad inay leedahay dhaqan wanaagsanna aan barno inaan barno iyo aqoontii